war degdeg daawadayaal subax wanaagsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa saakay howlgalladii ugu ballaarnaa waxa ay ka sameeyeen deegaano iyo tuulooyin dhaca gobolka Shabeellaha Dhexe qaasatan deegaanka Jabadgudoni oo ay shalay soo weerareen kooxda qawaarijaha Al-Shabaab. wararka aynu ka helayno deegaanka Jabadgudoni iyo tuulooyin ku dhow ayaa waxay sheegayaan in ciidanku ay ku dhaqaaqeen goobihii maleeshiyaadka nabadiidka ee Al-Shabaab ay ka soo qaadeen weerarkii ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku soo qaadeen kaga soo qaadeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa inoo xaqiijiyay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay saakay gulufkii ugu adkaa ay la galeen kooxda nabadiidka ah ee Al-Shabaab iyadoona ciidanku ay ku soo furteen hub iyo saanada militari oo ka carreen argixisada Al-Shabaab. saraakiisha ayaa inoo xaqiijiyay in deegaan lagu magacaabo Gaafoor oo hoostaga Jabadgudoni ee ciidamadu howlgallo ballaaran ay ka sameeyeen waxayna ciidanku ay ku guuleysteen inay ka duldhacaan godadkii nabadiidka Al-Shabaab ay kaga soo qaadeen weerarkii shalay ay ku soo qaadeen deegaanka Jabadgudoni ee gobolka Shabeellaha Dhexe. wararka ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee dhowr jah ay ka weerareen goob fariisim ah oo nabadiidku ku lahaayeen Jabadgudoni iyo deegaano ku dhow waxayna ciidanka xoogga ay ku guuleysteen in hub iyo saanado militari oo ka carreen argixisada Al-Shabaab inay ciidanku ay gacanta ku soo dhigaan. sidoo kale ciidanka ayaa waxay dhaawac culus u geysteen horjoogo lagu magacaabo Yuusuf Qumayn oo kamid ah horjoogayaasha ugu sareeya gobolka Shabeellaha Dhexe kana tirsan argixisada Al-Shabaab. waxayna ciidanku sidoo kale ay dhaawaceen 12 kale oo maleeshiyaada kadib dagaal xoogan oo saaka ka dhacay tuulooyin aan ka fogeyn deegaanka Jabadgudoni ee gobolka Shabeellaha Dhexe. ciidanka ayaa saaka waxa ay aroortii ay ku duuleen dhowr deegaan oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe waxayna sidoo kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku guuleysteen inay gudaha u galaan dhowr fariisimood oo nabadiidku halkaas ay ku lahaayeen. mid ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo xiriir dhow la sameeyay ayaa inoo xaqiijiyay in howlgalladii ugu cuslaa saakay ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka sameeyeen gobolka Shabeellaha Dhexe deegaanka Cadaan Lixi, Cali Fool Dheere, Ceel Cali Axmed, Ceel Baraf iyo deegaano ku dhow ay ciidamadu waxa ay ka sameeyeen gulufkii ugu xooganaa oo dalka looga saarayo kooxda nabadiidka ee Al-Shabaab. Shabeellaha Dhexe waxaa ku sugan taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa Yuusuf Raagi waxa uu la kulmay cutubiyadii ugu badnaa ee xoogga dalka waxaana jananku amray in sida ugu dhaqsiyaha badan ciidanku ay qaadaan tallaabooyin militari oo looga jawaabayo weerarkii nabadiidku ay ku soo qaadeen deegaanka Jabadgudoni iyo tuulooyin ku dhow. General Odawa Yuusuf Raagi ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inay muhiim tahay in shacabka Soomaaliyeed ay garab istaagaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed si looga adkaado kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab. wararka sidoo kale waxay intaasi ku darayaan kolonyo aad u tiro badan oo watay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa Yuusuf Raagi inay gaareen deegaanadii shalay dagaalku ka dhacay wuxuuna jananku uu haatan ku sugan yahay deegaanka Jabadgudoni isagoona kulan la qaatay saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan halkaasi. mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa inoo xaqiijiyay in ciidamadu saakay ay ku baaheen dhowr meelood oo horey gacanta ugu jireen kooxda Al-Shabaab iyadoona ciidanku sidoo kale ay ku guuleysteen in ay saakay soo qabtaan tiro maleeshiyaada oo miinooyin dhigay jidka mara deegaanka Jabadgudoni ee gobolka Shabeellaha Dhexe. guud ahaan deegaanada gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa si xawli iyo dardar loogu soconaya howlgallada culus oo ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. General Odawa Yuusuf Raagi oo wata gaadiid dagaal oo aad u tiro badan ayaa waxa uu gaaray deegaanadii shalay ee soo wareen kooxda argagixisada ee Al-Shabaab waxaana amar degdeg ku bixiyay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo dhaqaaqo loona weeraro goobihii ciidanku ay kaga soo duuleen kooxda Al-Shabaab ama kooxda argagixisada ee Al-Shabaab ay ka soo duuleen. jananka ayaa waxa uu la kulmay saraakiisha kala duwan ee ciidamada qalabka sida iyo kuwa deegaanka waxa uu kala hadlay sidii iskaga kaashan lahaa dagaalka adag ee lagu jiro kooxaha nabadiidka ee Al-Shabaab. Odawa Yuusuf Raagi ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dhawaan deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ay ka bilaaban doonaan gulufyadii ku xooganaa oo ay sameynayaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana jananku xusay in shacabka looga baahan yahay inay door muuqda ay ka qaataan dagaalka adag ee lagu jiro kooxaha nabadiidka ee Al-Shabaab. Shabeellaha Dhexe waxay ka mid tahay goobaha sida weyn ee ciidanka xoogga dalka ay uga wadaan gulufyada adag ee looga soo horjeedo nabadiidka waxaana sidoo kale ciidanku ay dhowr jaha ay ka weerareen tuulooyin hoostaga degmada Masaajid Cali Guduud iyo Aadan Yabaal halkaas oo ay gacanta ku hayaan kooxaha qawaarijaha Al-Shabaab. saaka jawi dagaal oo aad u weyn
ayaa waxaa laga dareemayaa gobolka Shabeellaha Dhexe. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna waxa ay dhaqdhaqaaqii ugu xoogganaa ay ka wadaan deegaanadaasi, iyadoona ciidanka saacadaha soo socda la filayo in goobo hor leh inay kala wareegaan kooxda nabadiidka ee Al-Shabaab. Markana haddaynu aadno deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, dagaalkii ugu cuslaa ee u dhexeeya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya kuwa nabad sugidda sirdoonka qaranka ee ciidanka sida gaarka oo tababaran ee Haramcad iyo ciidanka deegaanka ee loo yaqaan Macuusleyda ayaa saaka waxa uu ka dhacay deegaanka Dhanaane ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Dhanaane waxay dhacdaa dhulka xeebta waxayna hoos tagtaa degmada Marka, iyadoona ciidanku ay saaka howlgallo ballaaran ay ka sameeyeen Jilib Marka, Gandarshe, Buulanaagay ilaa Dhanaane ayay ciidamadu howlgallada ay ka sameeyeen, waxayna ku guuleysteen ciidamadu saakay inay qaarajiyaan 18 dhagar qabo oo ka tirsan nabadiidka Al-Shabaab, iyadoona ciidanku ay gacanta ku soo dhigeen horjoogihii nabadiidka Al-Shabaab u qaabilsanaa gobolka Shabeellaha Hoose Zakawaadka oo lagu magacaabi jiray Xuseen Cabdalla, afgarashadiisuna ay tahay Xudayfa. Sidoo kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa dhaqdhaqaaqii ugu xoogganaa waxa ay ka wadaan Shabeellaha Hoose, waxayna ciidanku kaabiga ay ku hayaan tuulooyin hoostaga degmada Sablaale ee gobolka Shabeellaha Hoose. ciidanka ayaa waxay howlgallo culus ay ka sameeyeen dhowr goobood oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Deegaanka Busley Daawud ayaa ka mid ah goobaha sida weyn ay ciidanku howlgallada uga sameeyeen. Busley Daawud waxay hoos tagtaa gobolka Shabeellaha Hoose iyadoona u dhow deegaanka Qoryooley, waxayna ciidanku sidoo kale ay ku guuleysteen in goobo dhowr ah oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ay ka sameeyaan howlgalladii ugu cuslaa oo dalka loogu sifeynay nabadiidka Al-Shabaab. ciidanka ayaa sidoo kale waxay dhaqdhaqaaqyo xooggan ay ka wadaan deegaano iyo tuulooyin dhaca gobolka Shabeellaha Hoose aan ku xusi karno degmada Kutuwaarey, waxayna ciidanku ay ku guuleysteen in tuulooyin hoostaga dhanka jiinka webiga ee degmada Kutuwaarey ay dagaal adag kula galeen saaka kooxda nabadiidka ee Al-Shabaab. waxaa si weyn deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose uga soconaya howlgallada culus ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. ciidanka ayaa dhaqdhaqaaqyadii ugu cuslaa waxa ay ka wadaan deegaano hoostaga gobolka Shabeellaha Hoose. Degmada Baraawe ayaa ka mid ah goobaha sida weyn ee ciidanku howlgallada uga wadaan. tuulooyin hoostaga dhulka xeebta ee degmada Baraawe ee ciidamada howlgallo ay ka sameeyeen, waana jidka dheer ee xiriiriya degmada Kutuwaarey iyo degmada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose. waxaana halkaasi si weyn uga soconaya halganka adag ee deegaanadaasi looga xoreynayo kooxda nabadiidka ee Al-Shabaab. mid ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo saaka xiriir la sameynay ayaa inuu xaqiijiyay in wadada dheer ee xiriirisa degmooyinka Baraawe iyo Kutuwaarey si xubnihi uga soconayaan howlgallada ay wadaan ciidanka xoogga dalka. waxaana Xuseen ciidanku haatan ay ku roondeynayaan deegaano iyo tuulooyin badan oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, toosna u hoostaga degmada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose. saraakiisha ayaa sidoo kale waxay inuu xaqiijiyeen in haatan gulufkii ugu adkaa ama howlgalkii ugu cuslaa oo ka soconaya dhanka xeebta ee degmada Baraawe ay ciidanku ku guuleysteen inay gudaha u galaan dhowr fariisimood oo nabadiidku ku lahaayeen deegaanadaasi. saraakiisha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed ama saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee ku sugan gobolka Shabeellaha Hoose ayaa amar lagu siiyay inay sida ugu dhaqsiyaha badan goob kasta iyo deegaan kasta oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose inay ku dhaqaaqaan. howlgalkan oo lagu magac daray howlgalka aamusan ayaa waxaa amray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya oo ah taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida. waxa uu xusay in deegaan kasta oo ka tirsan gobolada dalka in ciidanku sida ugu dhaqsiyaha badan ay ka bilaabaan gulufyada xooggan ee dalka looga sifeynayo kooxda nabadiidka ee Al-Shabaab. sidoo kale wararka ayaa waxay sheegayaan in howlgalladu ay ku sii baaheen tuulooyin dhowr ah oo hoostaga jiinka webiga ee gobolka Shabeellaha Hoose aan ku xusi karno deegaanka Basra oo u dhaxeeya gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose. waxayna ciidanku halkaasi ka wadaan gulufkii ugu xoogganaa oo ka dhana kooxaha khawaarija ee Al-Shabaab. markana haddaynu aadno gobolka Hiiraan, waxaa si dardar looga soconaya howlgallada ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. taliska qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka ayaa saaka howlgalladii ugu cuslaa waxa ay ka sameeyeen tuulooyin hoostaga deegaanka Burdaar iyo Teedaan oo si toos u hoos yimaada gobolka Hiiraan, waxayna ciidanku halkaasi guluf adag kula galeen kooxaha nabadiidka ee Al-Shabaab. taliyaha ciidanka dhulka ee ku sugan gobolka Hiiraan ayaa waxa uu amar ku bixiyay in si degdeg ah ciidanka xoogga dalka ay uga dhaqaaqaan goob kasta oo ku dhuumaaleysanaya nabadiidka Al-Shabaab, iyadoona ciidamadu saacadihii la soo dhaafay ay gaareen deegaano iyo tuulooyin ka tirsan degmada Maxaas, halkaas ay ku dhuumaaleysanayaan kooxaha khawaarija ee Al-Shabaab. saraakiisha ciidamada xoogga dalka khaasatan qaybta 27aad ayaa wada gulufkii ugu xoogganaa ee dalka looga sifeynayo kooxaha nabadiidka, waxayna ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ee loo yaqaan Macuusleyda ay ku guuleysteen in goobo hor leh ay ka sifeeyaan kooxda nabadiidka ee Al-Shabaab.
guud ahaan gobolada dalka waxaa si dardar leh uga soconaya howlgallada ay wadaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Saacadihii la soo dhaafay ciidanka ayaa gacanta ku dhigay deegaano hor leh oo ay muddo dheer ka harimi jireen kooxda nabaddiidka ah Al-Shabaab. Daawadayaal, wixii ku soo kordha howlgalladan culus ee ka soconaya deegaano iyo tuulooyin dhaca gobolada dalka waxaad ka daawan doontaan janalkeena Galcad. Fadlan hadduu ku soo gaaro janalkaas subscribe inoo saar. Waa mahadsantihiin.